aadaan salaamaya saaxiibada meel kasta joogtaan halkan waa hadaleynta 14 saaxiibada ku soo dhawaada muuqaalka waan ku eegi doono afar xaqiiqo oo laga diiwaan geliyay Axmed Tahliil oo ah tababaraha xulka maamulka Galmudug kadib markii dabcan uu ka qayb galay barnaamijka qaraxo oo inta badan qabanaysa shabakada Astaan TV weeyaan yani waa qaab barangiga weeyaan saaxiibada waxaan idin soo gudbin doonaa afar xaqiiqo oo laga diiwaan geliyay Axmed Tahliil calaalaha waa ka raanti Axmed Tahliil waxa uu yahay qof aad iyo aad u wanaagsan sababtoo tahay markaad muuqaalkaasi haddaad daawatay dabcan ama haddaadan daawan run ahaantii waxaad ku ogaanaysaa Axmed Tahliil inuu yahay qof markaasi aad iyo aad u degan afartaasi qodob ayaan idin soo gudbin doonaa ugu horeyntii soo dhawaada waxaan idinka codsanayaa in YouTube-ka hadaleynta 14 noo subscribe gareysaan sidoo kalena like-taan uga caawisaan waxaad leeyahay muuqaalkan ku soo dhawaada run ahaantii waxaanu ku eegi doonaa Axmed Tahliil dabcan qaabka waliba muxuu dareemay markii lagu sameeyay barnaamijka qaraxo oo ay shabakada Astaan TV ay markaasi inta badan Ramadaan ka soo qabato waa yahay saaxiibada markale leetaad baan idin salaamaya run ahaantii waxaan idin soo gudbinayaa afarta xaqiiqo iminkan midda koowaad waxay tahay afarta xaqiiqo midda koowaad waxay tahay deeganaan runtii Axmed Tahliil waxa weeye ruux aad iyo aad u degan weeyaan runtii deganaanta markii aan ku dhahayo yani tusaale ahaan oo kaleeto markuu soo fuuliyay gaariga dabcan rakaabka ah wuxuu dareemay mid markaasi dabcan xataa wax kasta hadii ku dhacdo deganaan uu meesha soo galay runtii barnaamijkan waa barnaamij qaraxo weeyaan waxaana lagu tijaabinayaa qofka dabeecadiisa dad baa jira qof hore ka xanaaqaya dad baa jira hore markaasi dabcan waa ka gacan ka hadlaya laakiin ugu horeyntii wuxuu muujiyay deganaan waa yahay qof aad iyo aad u degan weeyaan ninka lagu magacaabo Axmed Tahliil runtii midaasna waa mid markaasi u wanaagsan weeyaan marka tababaraha xulka Galmudug wuxuu dareemay midda koowaad ama uu dareensiiyayba in uu markaasi uu yahay qof markaasi aad iyo aad u degan waayahay qodobka labaad aynu eegno Axmed Tahliil tababaraha xulka maamulka Galmudug waxa weeye qof aad iyo aad u xushmad badan weeyaan salaano kaleeto biyo ayaa lagu shubay salaano kaleeto Galmudug ayaa wax laga sheegay salaano kaleeto Turkiga ayaa rabtaa la yiri salaano kaleeto waxa la dhahay matii tababare aad iyo aad u wanaagsan matid kali lacagtaas dhuuqda camal soo marka intaas oo idil micnaha iyadoo lagu sameynayo wuxuu kali dhahay dib malahan waa iska caadi waa kan yani salaano kaleeto qofka hadii aad xagaxagato waa dabcan maanta dhan aad kor saaran tahay waa dabcan maanta aad iyo aad murbu xanaaqaya soma marka ninkan oday waxa la Galmudug adiga guuldarada dabcan maxaa la yiraahdaa gaarsiiyay sababta tahay Galmudug waligeed oo guuleysan jirtay ayuu markaasi dabcan la weeray laakiin sidoo kale to runtii Axmed Tahliil wuxuu dadka dareensiiyay inuu yahay qof aad iyo aad u xushmad badan sidoo kale to xushmada markii laga soo tago runtii dadka wuxuu dareensiiyay inuu yahay qof aad iyo aad u adkaysi badan weeyaan waa yahay qodobka kale aynu eegeynaa qodobka wuxuu yahay dabcan amar yeelid ninka lagu magacaabo Axmed Tahliil afarta xaqiiqo oo laga diiwaan geliyay waxay ahayd amar yeelid salaano kale muxuu yeelay wuxuu yeelay waxay tahay isaga oo dabcan gaariga rakaabka soo foolay kadib saaxiibada sameynay barnaamijkan waxay u dirsadeen biyo oo waxa la dhahay Axmedow adiga ayaa markaasi dabcan banooniga iyo aad iyo aad ku wanaagsan iyo socodkii waxyaabahaas waxaad noo doontaa biyo runtii biyaha qofka markaad aad u doonto kadibna biyaha aad keento ama cabitaanka aad keento loo yiraahdo corona qabta gacanta ku soo taabatay kan ayaa sameysay bababa maxaa dareemi lahayd yani waa xanaaq leh soma dadka inta badan waxay aaminsan barnaamijka in la isla og yahay barnaamijka maaha barnaamij la isla og yahay maaha waa barnaamij micnaha maaragtay kadis weeyaan inta badan dadka waxay leeyihiin kamarada sidee loo habeeyay waa barnaamij la soo baarandegay weeyaan sababta tahay barnaamijkan kaliya waxa la qabtaa Ramadaanka hal sano gudaheeda waa wax micnaha lagu sameyn karo weeyaan wax fudud weeyaan marka amar yeelida waxay tahay kadib markii uu doonay biyaha cabitaanka ama biyaha caadiga markuu doonay ninka la yiraahdo Axmed Tahliil waxa la yiri biyaha qabow maaha xataa biyaha caafiga ayuu keenay yani wiilka dalowarka ahaa wuxuu yiri waxa noo soo qabataa caafiga wuxuu yiri caafiga ma ugu dirsan maxaa qaldan dadka inta badan daawada weeyaan ayaa markaasi dabcan og ama muuqaalka marka la socdo weeyaan hadaadan hore u daawan hadda soo daawo marka amar yeelida ayaa xaqiiqooyinka markaasi laga diiwaan geliyay ninka lagu magacaabo Axmed Tahliil sidoo kale to qodobka afraad waxa weeyaan
qodobka afraad dabeecad wanaagsan waa qof markaasi aad iyo aad dabeecad wanaagsan weeyaan sababta tahay Axmed run ahaantii marar badan ayaa la isku dayay in markaasi xataa been laga sheego xataa waxaa la yiri adigan iyo Brunei kuma fiicnid intaas oo xataa biyaha lagu shubay biyo markii lagu shubay xataa markaas wuxuu isdhay bal ninkan faca waaye biyaha aad ku shubtay xataa asagoo xataa qoslaya dhoola cadeynaya ayuu biyo kale ku shubay soo marka taasi waxa ay ka dhigan tahay run ahaantii Axmed Tahliil tababaraha xulka maamulka Galmudug waxa weeyaan qof markaasi aad iyo aad wanaagsan weeyaan runtii barnaamijkan waa uu soconaya dad badan ayaa markaasi dabcan la soo gudbin doona inta badan saaxiibada waxaana ku soo qaadan doonaa xaqiiqooyinka markaasi laga diiwaan geliyay su'aalahan oo kale baabajiyo oo kale laga sameyn doona sidoo kale waxa laga sameyn doonaa fanaaniinta ku nool gudaha Muqdisho qof kasto oo markaasi dabcan waxyaabaha laga diiwaan geliyay inuu eegi doona marka saaxiibada afarta xaqiiqo oo laga diiwaan geliyay Axmed Tahliil oo barnaamijka qaraxa waxa kamid ah koow degnaan xishmad amriyeelid iyo waliba dabeecad wanaagsanaan weeyaan marka saaxiibada ruuxantii qof kasta oo bani aadam ah wuxuu leeyahay dhiig su'aalahan oo kale maanta adiga qof facaaga ama magac caarifad lahaw ama magac caarifad lahaanin adduunka qof maaragtay dabcan oo wax caarifad u sameynaysid ma jiro macna qofka darbaaxashaas ka dhufanaysa waa handadaysa kan waa leedahay kaas waa leedahay cid iska yeelaysa ilaahay abuurta malaha xataa haddii aad dabcan maanta aad xataa gacanta qaadeen waa afkaaga qofka iskaga yeelaysa sama wallahi intaba micnaha maaragtay xataa in dabcan arrintan dagaal tahay xataa muusan dareysin marka afarta xaqiiqo ee laga diiwaan geliyay Axmed Tahliil ayaa markaasi ay ahayd sidoo kale tababaraha xulka qaranka Axmed Tahliil kadib barnaamijka markii loo sheegay inuu yahay barnaamijka qaraxo wuxuu yiri runtii aniga horta waa is celiyo dheh taada kale anigana wuxuu yiri adduunku waxa soo kartaa nacbanaw yar laakiin dib malahan kullay waxa aaminsanahay aniga in ahaan qof aad iyo aad u degan gacanteedina ma taqaanta dagaal ayuu yiri waxaan waa iska caadi weeyaan waa iska dhalinyaro weeyaan marka saaxiibada muuqaalka intan ayaan kusoo gabagabeynaya waxyaabaha laga diiwaan geliyay Axmed Tahliil oo ah tababaraha xulka maamulka Galmudug kadib markii uu ka qayb qaatay barnaamijka qaraxo saaxiibada intan ayaan kusoo gunaanaday ayaan kusoo gabagabeynaya waxaan idin ka codsanayaa in YouTube-ka hadaleynta 14 subscribe garaysan sidoo kalena laagtan uga caawisaan waxaad leeyahay muuqaalkiisa xiga nool kulanti bye bye